Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Askari marxuum Cabdilaahi Maxamed Ciise oo ku caan ahaya dhuluqo ahaana askari ka tirsan booliiska Dhuusamareeb ayaa si arxan darra loogu dilay bar kontarool oo ku taala magaalada Dhuusamareeb xilli uu hurdayay, waxaana si fool xun u dilay askari kale oo ka soo jeeda degmada Cabudwaaq ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. waana Ramadaan, waana bil cibaado iyo qeyrkeeda wadata. fadliga bishaan aan ugu ducayna marxuumkan la dilay, hana dhaafin walaal adigoona ducada ku kabin siina sheergare si Soomaalida kale ay ugu duceeyaan. marxuum Cabdilaahi Dhuluqo ayaa caan ka ahaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo uu ka soo jeeday gaar ahaan ciidanka booliiska dhexdiisa. wuxuu ahaa askari lagu yaqaanay howlkarnimo iyo daacadnimo. wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo howlkar ahaa kana adkaa shaqadiisa, mana ahayna nin dhib badan oo dadku waxay isku raaceen inuu ahaa nin degan oo afkiisa iyo gacantiisa dadku ka nabadgeli jireen, balse ugu dambeyn waxaa dil arxan darra u geystay. allaha u naxariistee jannatul firdowsna allaha ka waraabiya marxuumka, balse ugu dambeyn waxaa dil arxan darra u geystay askari kale oo ka tirsanaa ciidanka booliiska, kaasi oo marxuumka rasaas la dhacay xilli uu hurdayay. Faa'ide Gurey ayaa dilay oo ka tirsanaa ciidanka booliiska, kaasi oo ka soo jeeda degmada Cabudwaaq, waxaana dilka marxuumkan si weyn uga argagaxay shacabka ku nool magaalada Dhuusamareeb. goobta lagu dilay marxuumka waa bar kontarool oo ku taala magaalada Dhuusamareeb, halkaas oo uu joogay kana mid ahaa askarta dadka iyo gaadiidka ku baarta kontaroolada Dhuusamareeb, iyadoona ugu dambeyn askarigii kale ee dilka geystay uu isaguna ugu dambeyn gacantiisa isku dilay. haddaba walaal ha dhaafin muuqaalkan adigoona marxuumka u ducayn, siina sheergare si walaalaha wanaagga jecel oo idil ay ugu wada duceeyaan.